عليكم كسر على channel كيجا عناويت التيوب ما أنتوا حدين وذا أوتس مسبارش سداء وتقانيت ما أنت مركو حكاد دونا تمام فايدو وليه هاي عافمات كاجا مركو حرجينا إن نردمي سندونتد فيديو كان نمبر 1 مركا أنتي أوكسيدنتس واي نمبر 2 وقت دير أيو هاينايا أو باهي دقدقة ما قبانيسو وكل ركسنانيسا نمبر 3 low glycemic index واي and number 4 constipation dan malaha oo calooshaada way ku socon doontaa number 5 gluten free waa natural gluten free calool xanuunka iyo dadka qamadiga iyo waxyaabahaas dhibaan calooshooda iyo burka faa'iido ayuu ku leeyahay cuni kartaa number 6 diabeteska dadka haysto mise macaanka qabo ayadana faa'iido ayuu u leeyahay number 7 cholesterolka wudiga number 8 balance ayuu u sameyn doonaa hormoneskaga gabdhaha ka faa'iideysta iyo nimankaba number 9 wuxuu faa'iido asagana u leeyahay magnesiumka ayaa ka helaysa amase ku badan oo wuxuu ka caawinayaa murqahaaga serotoninka asagana protectionkeeda uu kor u qaadaa marka waxaa rajeynaa in nafaqooyin badan oo ka helayso vitamins iyo minerals leh marka waxaa rajeynaa videoga inaad dhamaysatid oo channelkan haddaa ku cusub tahay aad subscribe noo saartid haddii dadka hore aad ka tirsan tahayna nagu dhiirigelisid like-ta inaad asxaabtaada kale la sii wadaagtid iyo marka horta saa ujeedin xaggan waxaa ii yaalo liin macaan oo soo jarjartay maxaa iskugu cunaya liin macaanta iyo boorashka horta faa'iidooyinka ay leedahay liinta markaa ku cuntay vitamin C ayaa ku jirto ama waxyaabaha kale oo hadda fruitkan ay ujeedin oo kale ama pariaska mirahaas yariiska waxaa ku jiro antioxidants badan ay leeyihiin vitamin C ka helaysaa liintan vitamin C gaas aan ku cunooyo marka waxaan u soo qaatay waa in ironka aad ka helaysid fiber maxaa dhahaye meeshaan boorashka ka helaysid ironka absorption fiican lagu sameynayo marka isku heshid liin iyo boorash isku cuntid dhiigaaga maxaa dhahay ironka faa'iido badan u leedahay marka dadka oo hilibka badan cunin iyo dhiig la'aanta haysa iyo aad ugu fiican tahay subax isku cunaa liin macaanta iyo boorashka waa ka faa'iideysan doontiin midda kale waa antioxidants ayaan dhahay antioxidants-ka maxay u fiican tahay marka inay jirkaaga ka difaacdo unugyadaada jirka inay difaacdo dhaawacyada ka difaacdo free radicalska iyo banaankaas dhibaatooyinka ugu imaanayo iyo wax walba sunaa jirkaaga soo galayso iyo maadadan maxaa waxyaabahan stofyada dhaawaco sida maxaa unugyadaada oo kansarka keeno marka ka hortago waxaa waaye sida hadda kansarka oo kale marka mid kale saa ognahay waxaa ku badan fiberka boorashka waxay ka caawinaysaa calooshaada ma istaagi doonto taasna waxay ka hortagaysaa in xanuunada caloosha ay kugu dhacaan sida kansarka caloosha gluten free waaye oo dhibaatooyin kuma geysan doono dadka haddaa tahay allergica ku ah oo waa cuni kartaa waa faa'iidadiisa burka iyo waxyaabahaas allergic ku ah qamadiga iyo waxyaabaha kale dadka qabo marka diabeteska sonkorta qabo waxay aad uga caawinaysaa inay balance u sameyso sonkortooda iyo hormoneska dhan balance ayay u sameysaa way marka faa'iidadaas ayadana way leedahay faa'iidada ugu weyn marka waxaa waaye dadka haysto cholesterolka high cholesterolka haysto waxay ka hortagtaa horta waxaa ku jirto soluble fiber ku jiro oo ah fiberkan aad wuxuu ugu fiican yahay waxaa ku jirto maado laga helaa beta glucan la dhaho oo ka caawiso in cholesterolka la dejiyo marka study laga sameeyay ayaa waxay sheegaysaa sida qofka haddii uu cuno maalintii 3 gram ilaa 5 gram oo hadduu helo oo beta glucan ah in dhacayso ama uu degayo cholesterolkiisa ilaa 7% marka sidee ku heli kartaa intaasoo gram oo beta glucanka ah waxaa ka heli kartaa haddii aad maalintii cuntid
70 ilaa 75 gram ayaa studygan lagu sheegayaa. Marka 70 ilaa 75 gram horta ma badan tahay? yaa somehow way badan tahay wallaahi. qof walbana maalintii inta mar cunaysid iyo waxa ku xiran tahay appetite-kaaga. laakiin anigu waxaan dhahayaa halkii deciliter qiyaas ahaan waa 40 gram qiyaas. marka 2 deciliter maalintii daa cuntid saas ku heshay 80 gram camal. marka horta qaabab kalena beta glucankan waa ku heli kartaa, laakiin faa'iidada weyn oo aan ku jeclaado uu leeyahay waxaa ku jirto staffkan beta glucan la dhaho. mid kale asagana faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye in dadka magnesiumka ku yar yahay uu ka caawin doono murqa xanuunka iyo waxyaabahaas. iyo serotonin ayaa ku jirta ayadana, ama kuma jirtay maxaa la dhahaa, waxa soo saaraa productionka serotoninka ayaa badanayo. markaasna as long ay heshid more serotonin production ay heshid, inaa farxad heshid, inaa hurdo kugu filan heshid, inaa murqahaaga relax dareemaan, inaa stresska ka adamo. so wallahi faa'iidadiisa bahalka ma yaree yaa hamoogaanina maa la dhihi jiray. marka waxaan rajeynayaa videogan inaad ka hesheen asxaabteeda. waana kasoo hadli doonaa faa'iidadiisa. waxyaabo kale way badan yihiin iyo cuntooyin kale oo ayagana faa'iido noo leh. maanta maalin axada ii lahayd relax, gurigeyga iskaga quraacanayay, waska maxaa la dhahay nasanayay. marka waa inaa jirkeyga ka farxiya. sidaas ayaa u cunay quraacdan caafimaadka leh oo jirkeyga u faa'iideynaya. marka waxaan rajeynayaa inaa idinkana wiilkii ugu yaraan cuntid boorashkan ugu yaraan 4 maalin cun. calooshaada u naxariisa, bakteeriyada calooshaada la saaxiib, jirkaaga la saaxiib. assalaamu calaykum. waxaan rajeynayaa inaan noo subscribe garaysiin haddii aad ka heshan thumbs up.